run ahaantii haddaan su-aashii dib ugu soo noqdo maxaa ciyaaraha gobolada mar labaad u qaban weyday run ahaantii anu horta waxaan la kulmay waqti aad u fiican naadiyadoo waqtigaas aad u wanaagsanaa dhalinyarada waqtigaa ciyaaraysa oo dhalinyaro aad u carbisan waanu runtii waa isku duburtun laakiin dhalinyaro diyaaray ahayd السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واقف فوتبول شو إذن لما كلا سو نقطة كل برنامج كي حساب بدنابين كسي ودي دونا حلكيني فضلا هذا جانا كي يكون عصبتي سبسكرايب صار شير يا لايك هذا جانا كورو جرتينا شير يا لايك هذا لقى جنب هاي هذا برنامج كي حلقوي نومري وبرنامج كي معلم فيصل ياخذ الحلقة سلمرية برنامج كادم بوجو سي حساب بدن دونا يو معلمكو وكهل عاصمة دنيا كعيار في عناته kooxaha kale maadaama ay caasimadu tahay meesha ciyaartoyga oo dhan iskugu imaanayeen plus macalinku muxuu ka aaminsan yahay tababarayaasha dunida amba kuweebuu ka taageeraa qaabkay kubadda qaabkay u jecel yahay waxaasoo dhanba hadda qaybteennan saddexaad bay insha allah ku jirtaa marka nin kasta waxaan ku leeyahay koobkaaga shaaha sharaabka waxaad u baahan tahayba soo qaado nagula raaxaysa macalinka hadalkiisa iyo khibradda kubadda uu leeyahay waxaynu sugnaaba waa inaan idin kala baxo idinkiiyo macalinkiiyo khadar haddaan imka u sugnodo ciyaaraha gobolada horta ciyaaraha gobolada marka run ahaantii loo eego waa iska qabyaaladii la cumaamaday un oo marka loo eego gobol hebel taageeri kari maysid gobol kale adoo gobol hebel ka dhashay marka meesha ciyaartu way ka baxdayba maadaama meesha ciyaarta ka baxday waxaa khasaba dee dadkii iyaguna gobolkaad wadata ka dhashay inay barashar badan ku saaraan waxay iman kartaa lagu yidhaahdo mid qarafaadhuga intuu xildhibaan kula soo hadlo maxaad ugu dari weyday ninkaa wardaynan kan aad wadataa kubad garan maayo saaxiibe damiinan guul doonayn war maan gobolka u dhalan su'aasha labaad ku xigta waata ma u dhashay kubadii baan garay mar kubadda soo barto aynu ku dari doonaa marka waxa weeyaan waxaad ka qaadaysaa stress fara badan baa ku dhacaya barashar badan baa lagu saaraya ilaa islaanta soo kaxdaa ku habaaraysa odhaysa kan doqonkayna watay muxuu ahaa bilaadhiigii marka waa baashio iska cumaamadan oo dee la doonaya in la yar in asturana marka run ahaantii waxaan odhan karaa labada barashar ee naadiyada iyo gobolada waxaa ka barashar yar mar walba ta naadiyada oo dee mar walba guulun baa lagu xisaabtamaa laakiin dee xamaasad qabyaaladeed iyo xamaasad kaloo ujeeddo kale leh iduu meesha midna kuma jirto markaynu u noqono xagga naadiyada somalilan kooxaha ka ciyaara waxaa ugu taariikh dheer sidaynu ogsoonahay gaashaan iyo goodir labada kooxood waxaa ka dhexeeya tartan ficil adag xagga kubadda marka garoonka la joogo waa sida halka ka dhigantay barcelona iyo real ay ka yihiin spain ama yurub ay ka yihiin somalilan waxaa uga dhigan ama hargeysa gaashaan iyo goodir tartankii ciyaarta marka la eego labadaba tababarood soo noqotay arrintaasay kugu suurta gashay horta waxaan ku yar noqonayaa waa labada barcelona iyo real bay u yihiin de kolley anu fikirtaa ka duwan baan qabaa ha ugu horeeyaan aasaasidooda in la aasaasay gaashaan iyo goodir muddo ka bacdi markiiba wax ku soo xigay dowladda hoose ciyaaraha sidooduna way iska ficil badan yihiin oo markay kooxu wada ciyaarayaan dee haddaan ficil jirin dee meeshii alamintada dhalinyaradu imkaba iska ciyaarayso kalun bay lamid yihiin laakiin koox kasta oo timaada itaal meeshu doona ha dhigee dee ficil way la imanaysaa ama niman magacli ha ku jiraan ama kooxdu magac horaa lahaato laakiin haddana ficilku meeshii wuu imanayaa anugu markaan yar xuso arrinka noocaasa oon arrinkayga hadalkayga waxaan ku suntayaa inaanay labadaas uqli ficil ka dhaxayne waxaa jirtay waqti aan hayay tiimka goodir ee booliiska oo maanta jamaalo maanta macallin aan raggii waleelada ka mid ahaa sheekhawi baa ka mid ah rag badan oo aan odhan karo maanta playerskii maanta ka hargeysa wanaagsanaa baa ku jiray ayaa waxaan ula ciyaarnay tiimka dowladda hoose koob lagu qabtay treriska ama garoonka labaad ee hargeysa leedahay ayaanu ku ciyaaraynay waxaan isku soo baxnay group baan isku noqonnay anigii dowladda hoose anosad baana loyal waxaan ka ahaa kooxdii la ciyaarta ama ha yaraato ama ha weynaatee inamadaa waxaan u sheegi jiray in si isku mid ah loola ciyaaro koox si gaara igu tilmaamnayd oo anba i calaamadsanayd ama ficil gaari naga dhexeeyey muu jirin laakiin ujeeddada ugu weynan garoonka u tegi jirin waa inaan badinnaa haddaan ficil la gelayno iyo haddaan hanjabaad la gelayno haddii aanu ciyaar la gelaynaba waxaa jirtayna ciyaartii markay marayso waxoogaa haaftaynkii dambe inuu dagaal bilaabmay gigtaa la iska saaray disturbanskii baa batay ilaa taliyaha ilaahu naxariistay ilaahay raalli ka ahaaday naxariis jannada ka waraabay saqadhi waan odhan karo wuxuu ahaa hormuudka ciyaaraha dalka ayaa meesha fadhiyey saraakiil badan baa fadhiday maanu hadli karayn mar haddii taliyihii meesha haysta fadhiyo ma odhan kartid ama soo dareera ama go-aanan marka anugu qaadan karin may jirin waxaan u daynay dadkii xukumayay oo ahaa
wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha roodho kore in badan bay la soo kifaaxaan ciyaaraha markii habeenimidii lasoo dareeray ee ciyaartii run ahaantii barbaray wallaahi ma xusuusto wax ku dhammaatay inkastoo hal iyo hal baad ku dhammaatay aakhirkii oo gool bay markii dambe naga dhaliyeen ayaana nimadii waraystay waxaan ku nina mushkiladda inta leeg xaggee ka socotaa dareen baa galay waxay sheegeen in kooxda booliiska iyo kooxda dowladdu sidaas ku yihiin taimka waxaan uga socday su-aashaadii ahayd waa labada qor is challenge gareeyaa dowladda hoosena saasay ku tahay militariga booliiskaba marka cid kasta oo meeshan timaada garoonka ficilka u imanaya waxa taa ay labeeyaa waxaa la yidhi mar haddii raggu iskaba leekaadaan oo isleegyihiin imika kooxa badan oo waxa jira dee waynu arkayna tartankii ugu dambeeyey kolley ka warrami mayno qaabka ku qaadeen maaliyaddu waynu arkaynay iyo sida fudud ay u qaadeen aan cidna is hortaagi kar weyn inkastoo moose booliisku waabiyeen oo laga yaxday booliiska haddana dee wad arkaysa say ku qaadeen duulistii hawada ka mid ahayd caafimaadka oo shalay iyo galeelnay baa ka mid ahaa rag iyo galeelnay baan ka mid ahaa marka dee raggu mar haddii seer la wada noqdo waa iskan siiya nasiibkuna ninkii ilaahay siinayo unbuu raacayaa laakiin maanta dee waan u qiraynaa inay gaashaan iyo goodir ahaayeen labadii ugu horreeyey laakiin maanta waa la iskaba leekaado gaashaan iyo goodir odhan maayaan caafimaadka la ciyaareen iska seexda ama riseefka ciyaarsiiya no ma odhan karaan duulista baad la ciyaarayso shalay abuurtee iyadan la ciyaar ma odhan karaan kooxuhu maanta dee waa la iswada yaqaano waa la isu wada dhadhow yahay kooxdii dadaasha ee dee meesha diyaargarow fara badan ka muuqdo ee moral badan ka muuqdo unbaa koobkaana dee la hoyataa anu waxaan haysan jiray kooxaha ka mida kooxaha yaryara markaana heerka koowaad soo gudbo nafta la odhan jiray kolley waxaa ku suntan ragga ugu magacaaweyn la yidhaa shakuur shabeel belo oo xildhibaan ka ah maanta deegaanka berbera rag badan oo noocaasaa ka mid ahaa ayaa waxaa laygu yidhay kooxda gaashaan nin la yidhaha batuun oo ahaa taliyaha meesha haysta markaa wacyigelinta iyo ciyaaraha ayaa ii yeedhay waanu sheego runtii waxaan ku yidhi anu in badan baan kooxaha soo tababaray laakiin waxyaalihii markaa aanu hordhigay ee baahiyaadka kooxda ahaa aan u baahnaa way buuxiyeen waanu mahadsanyahay batuun kooxdaa muddaan hayey gobollada iga soo galay iyo muddo ka bacdi waan xanuunsaday iyada laftigeeda waan ka tegey waanu sheegay addisababa baan tegay addisababa baan gaadhay waxaan ku yidhi haddii si dhaqsa usoo noqdana kooxdii gacantan ku siiyan karaya haddii kalena macallin sidaasaan kooxdaa kaga tegey muddo ka bacdi anoo jooga ayaa waxaa siciid ismaaciil oo booliiska haystay ayaa kooxdii baan doonaynaa inaad faysalo gacanta u dhigto iyadana saasaan ku qabtay labada kooxoodba gacantan ku dhigay labada jeerna marna anoo gaashaan watana waan la ciyaaray booliiska marna anoo booliiska gaashaan waan la ciyaaray run ahaantii aniga farxad bay ahayd oo waxaan la mid ahaa nin marna garanka xidhanaya gaashaan marna garanka goodi laba kooxoodna la wada leyliyey oo inamadeydii u badnaa ayaa wada ciyaarayey run ahaantii wixii dee kubaddu ma taqaano hebel baad walaalatiin hebel baad saaxiibtiine waxa loo ordaya waa dhibcaha meesha yaalla amba koobka meesha yaalla koobkana amba ninunbaa labada kooxood ma wada qaada midunbaa qaada marka run ahaantii labadii jeerbana barbaraanu gallay marka aynu ka gudubno wax yar ciyaaraha somalilan ama heer gobol ama heer naadi marka la eego kooxaha caalamka yurub ka ciyaara ama latin america ama asia ama afrikaba kooxaha ugu taageerta ama kooxaad ugu jeceshahay waa kooxdee aad inta badan daawato khadrow iga raalli oo intaanan somaliland ka bixin anu horta run ahaantii su-aasha in kastoon kaaga joogan kugu ixtiraamay haddana aan ku yar noqdo somaliland iyo hargeysa waxaa jirtay imika kooxaha maanta jira kooxda duulistii hawada I don't know xidigaha cirkii waxba imkamala la yidhaahdaa kooxdaas kolley maraaxil badan bay soo martay kooxdan ka soo bilowna waxay ahayd kooxda Watson Village aynu markii hore soo bilownay oo Cumar Henry aad malaa ka garanaysaan Jamaal oo maanta tababaraha kamid ah booliiska kamid ahaa rag badan oo maanta dibadda ku maqan baa kamid ahaa kooxdaas in badan baan gacanta ku soo yeynay iyagoo yaro ilaa 12 jiraan soo bilaabay waxay soo gudbeen heerka labaad heerkii koowaad marka ay marayaan dee maadaama aanad baakij badan haysan amba aanad cid ku gacan qabatay aanad haysan kooxaha jiray markaa goodir iyo waxay u badnaayeen ay ahaayeen iyo gaashaan 3-4-5 ina marka laga qaato kooxdu way dhantaalmaysaa inkastoo isku daynaan soo buuxino waan soo buuxin jirnay kooxda ay marka duulistii hawada amba xidiga cirka la yiraahdo horta diplomat kale ka soo mareen maraaxilka ay soo mareen kooxdaas ka base u ahayd dhalinyaro badan oo u badan jirtay agaarkeeda markii dambe ku biirtay axmed cali iyo nin la gacan guray baan u xil saarnay aniga sheekh maxamed baa la dadaalnay sidii seeraa ku noqon laayeen inta dhismeynta barkaan siin jiray anoon macallin u ahayn ayaan haddana dhisidda anugu maanta yagleelkooda iyagii caafimaadka iyo kuwan tirsanayana tiimamkii aan yagleelay ka mid ahaayeen marka waxaa loo baahan yahay tiimamkeena maanta jira in la yagleelo hadday tababar tahay
hadday dhaqaalatay hadday moor sabortay inta ardayda jaamacada digriya la yidhaha gala inta bilaa camalka shaqo la siiyo si inamadeena yaree dambe soo kacayaan ay soo higsadaan iyaga laakiin inankii maanta markuu xaaladda gurigooda dib u eego iyo ciyaar runtii marka loo noqdo nin gurigoodii aanba waxba haysan aanba qutulduruligiiba uu cidhiiri ku jiro siduu kubad ku ciyaaraa way adkaanaysaa anigu waxaan leeyahay dadweynaha reer somaliland iyo dadka ciyaaraha u dhuundalooda war dhallinyaradiinan u soo jeesta oo dhallinyaradiinan maanta ku maranaysa liibiya iyo badaha iyo muqaadaraad kulaynayo haddii la doono looga faa'iidaysan karo in qoryo loo dhiibo shabaab loo diro war dhallinyaradiinan wakhtigooda inta enerjiga ayaan looga faa'iideeyo garoomo waaweyn ha loo dhiso waxay ku noolaadaan oo faamiligooda ku noolaada iyaga shaqaha la siiyo isagoo ciyaariya shaqana ha qabto gelinka hore gelinka dambena kubidisaaciya markan dib bulshada ugu noqdo waxaanan iloobi karin maalin maalmaha ka mid a idaacaddan deganaha waxaan ka soo dhaadhacay idaacadda gaadhimaan wadan timekii iga dhacsanaa inaba ayaan training ku siinayey dhalinta kacaanka nin aan iskarayno ciyaalnimadayadii aan soo kornay ayaa isagoo xaajiyad wanaagsan oo dee ilaahay uu iska ladnaa ii joojiyey xaggee tegaysaa waxaan tegayaa garoon baan tegayaa baan ku yidhi markaas walaalkii waxaan xidhnaa kubadda wuxuu noo maadigo intan leeg baad biilbiila laaglaagi karaysaa saan ku waanad fahamsanin kubadda markaad fahamto horta su'aal baan ma weydiiyey ciyaaraha caalamka ma daawataa baan ku yidhi markaasuu igu yidhi haay waan daawada kuwaas masamadii ka soo daateen baan ku yidhi maana kuweenanoo kale un ahayn ma iyagoo sidan u baad aragtay adigu maraaxilka soo mari taari markaad fahamtaa maalinta dambe ayaad su-aashaydi ka jawaabi doontaa baan ku yidhi marka waxaa jirta qaadka imika masalan markaan soo qaato anu maanta halkan waxaan uga faa'iidaysanayaa mushkiladaha ciyaaraha hortaagnana sheego qaadkoo kale nimanka qaadka iibiyaa ma jecla in ciyaaruhu horumar sameeyaan because of ciyaaraha iyo qaadku waxay isku yihiin dab iyo waxay isku yihiin iyo baasiin maanta bulshada daawanaysay koobkii u dambeeyey wadarkiisa haddii la joogteeyo koobabka noocaasa waxaan rumaysnay 20% inay jaadka ku harayaan 80% qaadka iska dayn doonaan marka dagaalka meesha jira waxa ka mid a qaadkaasaa ka mid a oo aanay dhallinyarada badankooda iyo dadka ciyaaraha ku dhex jira aanay fahamsanayn nimanka ugu dagaalka badan ku haya ciyaaraha inay sor taagaan heer waxay gaari karaan inay inamada yidhahdaan anaa shaqo ku siina ciyaaraha iska daa waa inamada ugu macruufsan ee ugu magaca dheer dagaalku wuxuu ku socdaa waa ninkan jaadka iibinaya ayaa dagaalka wada cid kaloo wada dagaalkan in ciyaaraha la oryaamiya ma jirto haddaan soo qaato ciyaaraha bannaanka anu macallin baanay in badan baa macallin soo ahaa nin shaar cas xidhan nin shaar cad xidhan taageeradiisu macna ay samayn maysan muraadi ka daawada laakiin konsabka meesha yaalla amba fahamka meesha yaallo ah qaab ciyaareedka ay kooxdaas soo ciyaarayso amba taagtiga iyo tikniika isticmaalayaan ayaan uunbaan anugu taageeraa masalan oo kale Hector Cuban la yidhaha baan aad u jeclaa ciyaarihiisa wuxuu ahaa nin intuu Real Madrid iyo Barcelona ugu yimid Spain ayuu koox la yidhaha Valencia ayuu soo qaatay kooxii intuu years gudihii ayuu sida hilaaca u dulmaray championka laba jeer ayuu yimid markaa isagu inamadiisu afar lugood may lahayne laakiin taktiik iyo tikniiku meesha la yimid ayaa macallimiinta meesha joogtay ayaa aad uga sarraysay marka anu waxaan taageeraa had iyo jeer macallimiinta taktiiga iyo tikniigooda iyo qaab ciyaareedkoodu ka sarreeyaan kuwa kale ayaan taageeraa iminka Klopp oo kale Guardiola oo kale waxaan odhan karaa de waa niman waa filosofis baa loo eeg nina waa macallin caadi nina waa nin wax create garaynayo cusub iminka kubaddan in dhulka la dhigo dee nin baa keenay dhulka in kubadda la dhigo iminka Jarmalka oo kale yesterday iyo Ingiriiska kubad ma yaqoon shalay bay ahayd markii Latin America dhaqankii kubaddii la soo waariday ee Yurub la keenay oo niman khubari hadla yiraahdeen warsan kubaddeen ku socon maysee Latin America rag aan ka soo kaxaysana macallimiin iyo dhalinyarada iibka maxaa keenay in dadka la soo iibsado sidii self trade-ka waa nooc min self trade waa nooc waa la soo iibsaday dhaqankii yaalay Latin America Argentina iyo Colombia iyo yaalay iyo Brazil baa la keenay Yurub kubadda maanta Yurub ciyaar soo aragteen Spanish ka aragteen Ingiriisku wallahi shalay bay idku dawad yareeyeen shalay bay ahayn kubaddoodu inaanay samadba ka soo degin 45 iyo 45 baa la ciyaara 5 iyo 40 cirka ku maqneed 5 iyo 40 laba isku haystay marka waxa weeyaan kubadda nooca in dhulka la dhigo rag baa keenay oo waa macallin baa keenay oo ikhtiraacay imka taariikhda kubadda cagta dib ugu noqotay Latin America laba kooxood laba idea baa ka jira Latin America koox ciyaarta defense minded baa la yiraahdaa iyo attack minded qolo weerar aaminsan la ciyaaro iyo nin aaminsan in defense la ciyaaro weerarka la yareeyo labadaas unba labada falsafadood unba Latin America yaala had iyo jeer badanaa waxa dominate marmar sameeya ninka attackerka Tel Santana oo kale Cooper oo kale waa defense minded
saasaa macallimiinta marka la ablaablaynaya loo kala saaraa marka waxaan odhan karaa anu taa waxaan taageeraa macallinku kolba qaabku wato oon ogay maanta taariikhda difaacu halku ka yimid taariikhda weerarku halku ka yimid ayaan maanta in badan dee bugaag badanna waan hayaayo macallimiinta u baahatay xataa jamaalkan qaar baan u dhiibay yarka mahdi leedha qaar baan u dhiibay macallinku u baahdaan buugga waan siin karaya bugaagta waan siin karaya marka waxaan u raacaa macallinkan is idhaahdo relax ayaad daawashadiisaa ka helaysaa ciyaartaad daawanayso laakiin shaar cas iyo shaar madowi dee aniga midna garan maayo midna inaadeerkeen maaha midna magaaladeennii maaha dee marka macno alla macna inoo samaysa taageeradiisa qof laakiin markaad aragto inuu fiicantii kooxdeed shalay taageertay laga wanaagsan ta kale taageer because kubaddaatay dee adugu inaad aragtida waqtigaaga ku lumiso inaad nafs laakiin haddaad ka qaado madax xanuun waxaad jirta waa laygu dhalinyaro badanoo marka meelaha qaar lagu daawanay isku dilaa dee waani fahamsanay kubaddaani fahamsanay macallin faysal muuse ildab waa macallinkii ugu horreeyey ee ku guulaysta tartanka ciyaaraha gobollada somalilan isagoo soo tababaray kooxo badan oo seere ayaa aad baan kugu mahadnaqaynaa daawadayaal intaynu isugu iman doono insha allah usbuuca dambe barnaamijkan oo kale waa khadar xaaji yuusuf macallin jamaal jante iyo filim qaade maxamed hemajes oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa mar kale yaanigii iyo idinkii oo isku soo noqday waxaan u malaynayaa macallinka wax badan baad ka faa'iideeno iyo khibradda iyo koojajku jecel yahay iyo qaab ciyaareedada uu jecel yahay markaa ninkii doonayay kooj inuu noqdo kolley macallinka midhiya laba waad ka faa'iidaysaa ninkii weli ciyaarto weena koojajka macallinku ka hadlay inaad ciyaartooda fiirsato waxyaaba badan aad ka faa'iidaa muhiima insha allah macallinku saanagagamuu tegin hal mar oo kalean isku noqon doonaa insha allah macallinka oo waxyaabo uu u baahan yahay inuu kasii hadlaa jira macallinka hadalka ma dhammaanayo because macallinku waxa weeyaan macallin aad khibrad badan u leh waxyaabo badan soo maray dad badan ku xidhnaa ciyaartooy badan soo saaray marka hadduu is yidhaahdo hal mar kusoo wada koob wixiisii o dhani ma koobmayaan marka waxaan aad uga raali gelinaynaa dhalinyarta amba ciyaartooydii hore ee aanu macallinku soo gaadhin uu soo gaari doono haddii lahaydhaa dee dadkii o dhan 40 daqiiqo laguma soo koobi karo marka waxaan idin leeyahay haddii lahaydha waa Agga Football Show oo idin leh is aragti dambe oo xiisa leh insha allah